tababarkan ayaa ahaa mid dadka looga wacyigelinayay dhowrista deegaanka iyo tacadiyada lagu xaalufinayo geedaha waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona ay iska kaashadeen taabagelintiisa hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan horumarinta barnaamijyada ee loo yaqaano UNDP iyo wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Furitaankii tababarkan waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta koonfur galbeed oo kasoo qayb galayaashii tababarkani u sharaxay muhiimadda seminaarkan uu leeyahay bulshada iyo sida ay muhiim ugu tahay ka qaybgalayaasha saacadaha ay joogaan casharada la siinayo si ay ugu dambeyntii uga helaan fikrado ay wax kaga bedeli karaan xaalufka dhirta ee laga dhiganayo dhuxusha. dabalaha faraha badan arkaysan haddii meesha ay dhirto dhirta dadku bani'aadamku oo uga badan geedaha markan oo la jarayo oo dhuxusha laga dhigayo dhib badan bay leedahay. marka haddaad tihiin bulshadii reer koonfur galbeed waxaan idinka codsanaynaa la dagaalankaas xaalufinta ayaa barnaamijka ku saabsan yahay in dhirta la ilaaliyo oo aan la jarin oo aan geedaha waxaan rabnaa aan la guurin karno geedaha in la guuriyo dhib badan ka imaanaya. marka munaasabadda waa noocaas waaye oo wasaaradda ay qabatay waa maalintii xaalufinta dhirta oo barnaamijkan ah oo 27 bishan أبيض وأنا طالع إذا كانوا واقفين محسنين الجرياشينا درت هلا إلى درت ونورش بني آدم كوا نورش بني آدم كوا درت كوا هذا درت الحالة فيه درت اللي أو دخل لقى تيجو أو جه اللي يترابط تمام معنا رابط ويران حواليه واحد أريان أو مهريان ما كان درت كنت دارنا سيد درت ولا إله waxaan isku ognahay dhirta inaan ilaalino waxaan isku ognahay dhirta in la ilaaliyo oo xil iska saarno gaar guud ahaanteena maadaama bulshadii aan ka koobannahay qaybaha kala duwan shirkina waa noo furan yahay. kani waa mid ka mid ah ka qaybgalayaasha seminaarkan oo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka ee degmada Baydhabo waxa uuna cabirayaa doorka odayaasha ay ku leeyihiin badbaadinta deegaanka. magaalada Baydhabo oo lagu ka hadlahay xaalufinta deegaanka oo bulshadu sheegay eedyada kuma hadlayaan aan ku dareera odayaasha deegaanka khaasatan degmada Baydhabo wayba odayaal ahaan waliyaa joogi wali noo dambeeyay in sheegay inuu shaqeeyay wasaaradda uu shaqeeyana dhinaca xaalufinta deegaanka dhinac walba inuu kula shaqeeyana garabna oday ahaan ka degmo ahaan ka deegaan ahaan yaa meel raayis iyo wasaaradda sheegana hadii la yahay dadaalka ay wadaan dadaalkiisa lama salaam calaykum warahmatullahi wabarakatuh. haweenka ayaa kaalintooda ka qaatay kuwaasoo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii barnaamijka waxayna isugu jireen hooyo guri joogto ah iyo gabar u dhaqdhaqaaqda deegaanka waxayna labadooda cabireen sida ugu macquulsan ee looga gudbi karo dabargo'a dhirta deegaanka iyo kaalintooda ku aadan ka hortagga baaba ku yimaada dhulka oo saameyn ku yeesha deegaanka. ما يكون النبات كلها النبات كلنا فلان هو بلاه نبات كل كله هو إيون والجنين صوب يا فلان إيه جينا نفتح سنة جينا نقول كان نحضر هذا لو حالفين تتيجان حالفين هو بلاد الكورية جينا نحن ما شاء الله أنت برشة وعي كذي إيه كان نفتح سنة مرور بني بمير هاي جيران في وزارة السيدة والعطر ذكر بدنا وده إيه كان كمان نجانا مرة ما جينا سد هذا dadaalka horumar yar leena tiida kale insha Allah in hadii uu leena gabdho aqoon-yahantii oo meel raas ee degmada Baydhabo may baaqan insha Allah sidoo markas wasaaradda shaqadeeduna oo waan wacyigelinta inuu dhigaan kaalmo guud gaabo doono wasaaradda may baan kuma hadlay marawada middaha intii meel raas ee barnaamij koronsi wada tan to lamida mid ka mid ah xubnaha dhalinyarada degmada Baydhabo ayaa sidoo kale hadal ka jeediyay seminaarka oo ka socday xarunta wasaaradda ayaa tibaaxay talooyin waxtar u leh deegaanka isagoona ka dhalinyaro ahaan soo jeediyay inuu hadii la fuliyo taabagelin kara
ahdaafta uu xambaarsan yahay barnaamijkan. أنا رأيي بيقولوا معنا هذا الورشة كان مثلا معنا هذا حفلة معنا هذا السبب فايل معنا لحنا أجازي مكان ويبقى معنا هذا التحديدين إنما معنا هذا وعدين تنسق كلام مركز بالجودة ونون هذه الأميرة أن للشغيان وسيرد سقوا يسقى عن الشغيان صوته وسيرد ما يبقى شغيان معنا هذا بريء ودنك يو بيرست معنا درت ويبقى قهرت ناس لبعض الديان كمركب معنا هذا إسامين تسقى قهرت ناس ويبقى كورن قادس كوبعين الديجان يقدرت يبلع الوضع كي معنا الديجان هذا انكسر كونفرق البدي كورن قادس مركز أسرادة مفضل لي مركب معنا كدير هذا وقت يقول مركب معنا كباب سيدرتيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Cali Isaaq Cumar oo gabagabadii seminaarka ka hadlayay ayaa marka ugu horeysaba amaanay sida wanaagsan ee qaybaha bulshada uga soo qayb galeen tababarka seminaarka iyo dulqaadka ay u yeesheen saacadihii ay fadhiyeen wuxuuna kula dardaarmay inay hirgeliyaan dhammaan duruustii ay ka faa'iideysteen seminaarka ugu yaraan ay gaarsiiyaan qaybaha bulshada ay matalayaan si uu kor ugu kaco heerka ka warqabka iyo ilaalinta deegaanka bulshada kaasoo u baahan ilaalin iyo dhowris si loo helo deegaan badqaba. sidii meel ay liinyara ay fali isticmaalka dhuxula طبعا ويبقى ملايين يبقى فاهمين برنامجka oo geek meelin qadray oo ma waxtar badan leeyahay deegaanka sidoo soo dhan waybahan jarid geedo wayba sawaasah xaalufin ama dhibaato oo sawaasah deegaanka oo saameyn ka weeraraysa hadii geedooda jarway waa sidoo sootan wayba nadaas dhulkeen nabad guuray roobkii iyo meel ay ilaahay ka tala galay way buuxaan meel ay ku haadayaan geedo meel leh ya haadayaan sidoo meel ay la sootan markan markasta oo bulshada kumada oo meel roob haqooq gal barnaamijkan wayba ku codsadaan inay meel ay nagadan idoosho xaafadoosh oo nagadan isla markaasna ku faa'iideeyaan barnaamijkan oo jarad geedo isla markaasna lagu sameeyo dhuxul way buuxaan markii la sameeyay dhibaatooyin badan la qabto geedooda wadanka iyo xaalufisme dhibaato lama markii la isticmaalo way banagala sahan inay meel ay xiiq iyo bilaay sabab oo meel ay markaas dadka meel ay sanka iyo wadnigu gal oo wala rabo air pollution بسبب ممكن ويبقى واحد باطل إذا بدت ويبقى كسي درن هميل هاي سامن تكوير راس ديجان أقولي بدر مركز برنامج كن جاي ويبقى واحد وعي جرينتا بالشيل شل دون بيو كفر رباز أو وستي إني ما هي هاي اللي فهمسي دبعت اللتة جروك جيدو بس المركز سليم كرسي ونقطن بكرسي ميريجيد وجرفة إني ما هي جيدو أول سمير هاي نديرنا مير هاي فرمار فيل ديجان فيل برواق فيل ونديرنا طبعا ويبوا سدار واحد يجيبوا بالشدة شدون يعني إذا ما يكون قادم مقدم واللي بيجيبوا عن إذا آخر شيء إذا مقدم لما كان وزارة إنه يبوا وده دونته توبرة أو وعي جلين بدنا سمعت دونته إن شاء الله سنة كان لما جيت أقول إنه يو مير هاي درير دونا وجوكته أو ما هلك وعي جيو مروج بيجوا إن شاء الله نسبة أما ولا نسبة شيء أما مير هاي ولا نسبة بدرين أنا ونقول أنا إسكوار صدقهم وعي جلنت إنه يبوا عن درير دونا مروج برنامج كان يبوا هو الأوفر هذا لا مدة ما هي نكو شخص من لا نكو جون من لا وزارة الجنوبية له وزارة الجنوبية المسؤول بتاعها شعبك وكفر قلبه
saas darteed shacabkeena way baahan iyadoo mas'uul ku siiyay isla wadin shay deegaan shay mas'uuliyadda inuu sameeyo ay dareen wala raaw ownership ama madal lahaansho deegaan inuu sameeyo ay sawireen baahan insha Allah barnaamijyada idan si dareer doona waqti badan dareer doona wasaaradda way masuubiyaasha haniisan ku faa'iideystaan in la deersii wacyigelinta wasaaradda goboladaas mar walba meelaha gobol degmo ilaa iyo tuulo in la deersii fahamka oo meelaha waxtarka geedo in leeyin bini'aadanka iyo xayawaanaadka markin taas noosna goorn way ba meelaha mar walba meelaha dadka booriyaan sheegane in la kasta mas'uuliyadii qaadgeedka ku qaad oo inta taariikhda 27 Abriil inta sidoo way tambor ma la qowdi baydo marka insha Allah wadiida ma santiin la kasta mas'uuliyadda ku saaran in ilaaliyo xifdinta geedo macnaha weyn ka fadhi marka geedku way ku wacyigelintaas yow mukhtaar sheekh aadan dalmar telefishinka iyo raadiyaha dalsan baydhabo jannaay